الله الرحمن الرحيم magacayga waa hodan aaran cigaal gudoomiyaha dhalinyarada gobolka galgaduudeed halkan maanta waxaan ku soo dhaweynay sida qurux badan oo sharaf leh musharax mudane qorqor oo ku faraxsanahay haddaan nahay dhalinyarada galmudug aan u soo dhaweynay si qurux badan una yahay daacada aragnay musharax daacada dalka dadka u qaban kara galmudug uu qaban karo wax muhiim ah oo ka qaadan karo kaalin muhiim ah musharaxiin badan way jirtaa laakiin qaasatan mudane qorqor waxaan u aragnaa inuu yahay idaacada dalka dadka wax qaban kara reer galmudug gaarsiin kara horumar weyn marka waxaan rajaynaynaa inuu noo soo baxo haddii ilaahay idmo waana ku taageersanahay mudane har iyo habeen dhalinyarada galmudug waxaan ku siinaynaa garab hiiliyo waxaan maanta kulan muhiim ah la qaadanay musharax madaxweyne maxamed cabdi kaariye qorqor kulankaas oo isku xog wareysanayeen dhalinyaro badan oo ka timid ilaa 5 degmooyinka Dhabbad, Caabud Waaq, Balanbal, Galansoor iyo Dhuusamareeb waxaan isku xog wareysanay musharaxa hankiisa iyo doorashadiisa annagoo dhalinyarada reer galmudug istusnayna in rajada reer galmudug iyo rajada ummadda Soomaaliyeed ay ku jirto in maanta cabdi kaariye qorqor ay tahay sida aligeed waxaan maanta ku soo booqanay hoygiisa uu ka degan yahay degmada Dhuusamareeb annagoo ku faraxsan xog wareysi ka bacdina ballanqaadyo badan iyo waxqabadkiisa uu noo soo bandhigay kuna qanacnay aadna u dhiirigelinay una sheegnay inaan haddaan nahay dhalinyarada reer galmudug aan garab taaganahay Mr. Qorqor maxaa yeelay galmudug waxay u baahan tahay hogaamiye daacada hogaamiye howlkara hogaamiye khibrad leh hogaamiye waayaaraga sida aligeed waxaan garanay maanta ninkii ka bixi lahaa ka saari lahaa dhibtaas inuu yahay Qorqor waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa Mr. Qorqor iyo rajada uu ka qabo hanka madaxweynenimada waana soo dhaweynaynaa haddaan dhalinyarada nahayna waa garab taaganahay dhinaciisa midig iyo bidixba waa fadhinaa waa garab istaagaynaa allana waxaan leenahay Allah waafajiyo tawfiiqda